نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. حديث صحيح مسلم أوريي خولة وحي لهذا بنت حكيم رسولك عليه الصلاة والسلام waxaan ka maqlo dhahaya qofkii meel daga man nazala manzila qofkii meel daga guri meel banaan ah adigu qofkii deegaan daga kadibna oo dhaho yaanihi a'uudu bi kalimati llahi taamat waxaan ilaahay kalimaadkiisa dhameystiran ka magan galaya min sharri ma khalaq wax walbo abuuro shartooda ayaan ka magan galaya. rasuulka alayhi salatu wasallam wuxuu leeyahay lam yadurru shay wax haba yaraatee dhib kuma dhacayo shay wax ugu yar ee dhib ah kuma dhacayo qofka ma taabanayo hatta yartahila min manzilihi dhalik illa oo meesha uu ka guuro ka tago. sida darteeda guriyaad heshay ama aad iibsatay ama aad kireysatay ama meel ayaa musaafir ku tahay safar ku tahay waad degtay sidee doontaba ha ahaato meel walba marka aad joogtid aad degaysid ama aad ku hoyanaysid isku day inaad adkaartaasi ama ducadaasi akhrisatid si ilaahay tabaaraka wa tacaala aad u haatid mid ku jira xifdintiisa wax dhib ana inuu ku taaban xusuusnow inuu rasuulka alayhi salatu wasalaam yiri lam yadurruhu shay wax haba yaraatee dhib kuma dhacaya.